maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed oo weheliyaan xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Laascaanood Siciid Xaaji Cabdi Maxamuud iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadu ayaa olole wada furida saaka ka fuliyay xaafadaha koonfurta iyo bariga magaalada Laascaanood wadooyinkan oo xidhnaa in ka badan muddo 20 sanadood ayaa waxa saaka ku guuleystay inay furaan maamulka cusub ee dhawaantan la wareegay hogaanka dawladda hoose ee degmada Laascaanood ay hogaaminayaan maayirka degmada Laascaanood iyo waliba xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Laascaanood waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood waxaana hadaladoodii ka mid ahaa hawlgal aan ka sameynay daafaha dhinaca hawdka magaalada iyo dhinaca galbeedka dhinaca bariga waxaan ku banaynay weeraan 8 wado oo xidhnaa waxaan idin soo jeedinaa dadweynaha reer Laascaanood waxaad filayseen maamul cusub oo isbedelay maamulka cusub intii uu magacawnaa wuxuu ku hawlanaa magacaabista iyo dhamaystirka waaxii dawladda hoose waxay maanta saadir waa dhanyahay wixii hadda ka dambeeyay laabo hawlgalkii iyo shaqadii dawladda hoose waxay degmada ayaan jecelahay maanta bishii labaad oo 22 bisha labaad ee sanadka 2017 hawlgal ka socda degmada Laascaanood ay fulinayso dawladda hoose degmada Laascaanood xogiyihii degmada fulinta degmada Laascaanood maayirkii degmada Laascaanood xildhibaanadii waxaanu maanta furaynaa ama qaar hadda aanu furay qaarna ku tala jirnaa saacadaha soo socda ilaa 8 wado oo xidhnaa oo badankooda ay qaarkood guryo ka dhisnaayeen waxay ka mid tahay nidaamka iyo howlgallada iyo waxqabadka dawladda hoose degmada Laascaanood oo maamulka cusub haddeer xogayaha iyo maayirku waa cusub yihiin dadweynaha reer Laascaanood waxaan farayaa arrintii loo baahnaa isbeddelkayagii inuu maanta bilaabmay wuuna soconayaa waxa weeye jidadka ciidda biyaha la daadiyo qofkii sameeya seeskiisana waa burburinaa gurigiisana waa qaadinaa waxa weeye waa in laga waantoobaa arrintaas xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Laascaanood Siciid Xaaji Cabdi Maxamuud ayaa ka dhawaajiyay inay soconayaan hawlgalladan dawladda hoose ay ku furayso wadooyin xidhnaa muddo badan sidaad la socotaan ama aad aragtaan waxaanu bilownay shidbanayntii wadooyinkii magaalada ee xidhnaa wayna soconayaan meel allaale meeshii ciddii goostay wado waxaanu wadnaa waa bilicda magaalada iyo hagaajinteeda taana waxaanu jecelahay inaan dadweynaha ama bulshadan u dhaqan magaalada Laascaanood iyo gobolka Soolba inay gacan buuxda ka qaataan inay nagala hawlgalaan inay nala furiyaan annaguna joojin maayno taa aanu bilownay waa mid soconaysa nin walba ninkii calaamadu qabsato ama guri dhisan ha ahaado ama sees ha ahaado waxaanu jecelahay garto in meeshani wado ummadu ka dhaxaysa ay tahay gabagabadiina maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed ayaa baaq u diray shacabka degmadu inay ilaashadaan nabadgelyada waxaana uu intaas ku daray inay socon doonaan hawlgallada noocan oo kale ah ayna ku furi doonaan wado kasta oo xidhan maanta tahay 22 bishii labaad 2017 waxaanu bilownay hawlgalkii wada banaynta waan soconaysaa maalin walba waa la wadayaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha degan xaafadda Farxaskulle oo saaka markaan hawlgalka wadnay si wanaagsan noola shaqeeyay soo dhaweynayay shucuur wadanimo iyo wadoon helaan doonayay xaafadda Farxaskulle noola shaqeysay inay yeena noola shaqeeyaan wadooyinkaana waa la furayaa qodobka labaad aan diray waxa weeye war dadweynaha degmada Laascaanood dirayo marka koowaad war dadweynuhu nabadgelyada ilaashada nabadgelyadu waa shay qaaliya nabadgelyada ilaashada Samiir Saciid Bila Bulsha TV Laascaanood